بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan tuso sidee invitation-ka lagu soo diray ee lagaga soo diray Google Classroom sidee loo aqbalaa. waxaan ku dhufaynaa markaa Gmail-ka hadda aan ka soo diray aniga wuxuu ahaa education online oo waxaan u bixinay agri lessons waxaan u bixinay education classroom kaas waxaan ku siinaa markaa click markaan ku siiyo automatic wuxuu ii geynaa markaa Google Classroom-kii aan soo dirnay kadib waxaan ku dhufanayaa qaybtan ay ku qoran tahay join automatic wuxuu ii xawilayaa Google Classroom-kii markaan tago Google Classroom-ka kadibna si fudud ayuu wuxuu ii soo qorayaa accept dheh marka accept ku dhufto automatic waa gelaya qaarkoodna ma u baahna qaarna u baahan yihiin hadda kana soo saarin qaarkood waa soo saarayaan hadda waa wadaa si automatic marka wuxuu ii geeyay qaarkoodna waxay ku leeyihiin accept dheh accept ku dhufanaysaa qaarkoodna si toos ah ku geenaya hadda waa ka ii geeyay waxaan ku qoranahay video 06 part time semester 5 si toos oo ii keenay markaan rabo inaan u sii gudbo sida cashar loo dhigaa waxa ku dhufanaysaa classwork waxa ku soo baxaya create kadibna waxa dooranaysaa materials si automatic material marka doorato wuxuu ku keenayaa meeshii wax la soo dhigi jiray caadi taqaanaa title-ka sameynaya waxaan soo dhigi rabaa ka soo qaado kale chapter 3 markaan doorto waxaan qorayaa lesson-ka magaciisii faahfaahin oo ka bixinaa markaan ka bixiyo kadib waxaan ku dhufanayaa add ku soo dar file-ka video-ga aan rabo inaan soo geliyo ama book-ga aan rabo inaan soo geliyo ama PowerPoint aan rabo waxaad inta soo gelin kartaa si automatic ku dhufanaa file kadib waxa ii soo baxaya upload-kii caadiga ahaa ee aad taqaaneen ee loo isticmaali jiray YouTube-ka kadib markaan ku dhufto wuxuu ila aadayaa computer-kayga kadib waa soo qaadanaa kadib waxaan dhex dhigaynaa si toos ah ardada cashirkooda kadib markii soo dhameeyo oo aan soo upload gareeyo waxaan ku dhufanayaa upload kadib aan ku dhameeyo wuxuu ii keenayaa meeshaan markuu ii keeno waxaan leeyahay post kadib uu dhigaa hadda ila fahanteen fila waxaan u golahaa bas inaad fahmi karto sida loo sameyn karaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.